ururka Xawiye Community oo kumid ah ururada ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ku shaqeeya samafalka iyo waliba geedka usbooqday mid kumid ah isbitaalada kale magaalada Baydhabo soo faafaynta warkaanka Feeriyow wariyagana Axmed Ibrahim Buule galankii hore ee geedka iyo waliba ururka Xawiye Community oo kumid ah ururada ku shaqeeya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayo booqdana isbitaalka weyn ee Bayhaw meelaasoo ka jar aabo Soomaaliyeed oo naahan udurka dhiig-yaraanta in ku badan muddo hal bilood gudoomiyaha ururka Xawiye Community iyo waliba uu soo wareysaday dhaqaatiirta isbitaalka weyn ee Bayhaw iyo waliba saasoo kale dadka la jaran aabugan xanuunsan Dr. Abdullahi Mohamed oo agaasimaha guud ee isbitaalka weyn ee Bayhaw oo mas'uuliyiinta ku dareertay ururka Xawiye Community oo ay dhalinyarada Johannes abaabuleen wax ka dhawa isbitaalka weyn ee Bayhaw iyo waliba uu ku warbiyay xaaladdu dadka soo wajin bukaankan usoo ku mahadnaqay booqashada iyo geedka kooxda isbitaalka weyn ee Bayhaw Dr. Abdullahi Mohamed Hussein waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay urur samafal oo ka asaasan South State gaar ahaan Baydhabo inay maanta nagu soo booqdaan isbitaalka Xawiye General Hospital oday oo anemia oo dhiiggiisa aad u yar yahay isla markaa oo familigiisina ay ka yimaadeen waxaan u awoodin marka in waxyaabaha qarashka inay u helaan isbitaalkan waa isbitaal oo community soo marka isbitaal oo free charge qof walba imaado oo ugu adeega waay soo marka waxyaabo qaar waxaa jiro oo looga baahan yahay banaanka laga keensado inta badan waxaa sameynaa bukaanada markay imaadaan oo ehel aysan lahayn u baahan yihiin dhiig in loo helo ama lagu shubo waxa uu sameynaa shaqaalayaasha nasiib oo wiilasha in dhiig ugu deeqaan sidii bishii hore soo dhaafay maamulka Sweden section ee dhiig loo baahnaa in bacd lagu shubo oo ay ku shubaan wiilasha isbitaalka ka tirsan odaygaana dhiigiisa mid hadda lagu shubeen wuxuu ahaa mid oo banaanka laga keenay sabab jiro awgeed qof hadda dhiig ugu deeqo aan weynay soo marka ururka samafal ee Xawiye Community booqashada noogu imaadeen maanta aad ugu mahadcelinaa kulli wixii oo garab istaagay anaga dhan waxa wada shaqeynaa bulshada oo South West State gaar ahaan dadka joogta Baydhabo iyo Boqol aan wada shaqeynaa marka wixii wada shaqeynaya taakuleen oo madan dhanba inaan aan gacan wada qabano waan la shaqeyno waxa una diyaar saad noogu soo booqateen oo bukaankiina u soo aragteen idinkana diga mahadcelinaa waxaan rajeynaa shaqo wanaag intaan in ka badan inay dhaxmari doonto gudoomiyaha guud ee ururka Xawiye Community Dr. Aadan Ali Mayo oo gabagabadii ku hadalay meelan iyo waliba uu san mahadnaqay mas'uuliyiinta isbitaalka weyn ee Bayhaw shaqaalaha iyo waliba saasoo kale dhaqaatiirta oo marwar banteegan antii oo caawiyaan dadka danyarta oo ka soo isbitaalka geedka waxa booqanay isbitaalka Bayhaw booqanay oo kumid ah bukaanada isbitaalka rogan aan sheegay meeyran la waayay maamulka isbitaalka Bayhaw ila ka mahadnaqana rogan dhaqaatiir da'yar iyo maamulka da'yar إذا كفرحسنا في الرئيس كيستال بيهاو نحن دواي ونوع Xawiye Community oo ka talagalnay shaqadii caadiga ah aan ka talagalnay ummadintana qoban qayb ku hayti intiina geedka habooqan Bayhaw lan odayahay lan ka kistomay dhakhtarka nin warbiyay intiisa lan diglaan hay khaatirta ka filinyin istaaka laakiin dad shay meel dheer ku qoyan baadi ku qoyan dhibaataysan baahin geedkantii oo helan wal meel raayis abitaan tan ka soo biyan raashin gadan qurac qadalan ka walaata أتمنى شيء أنتي ديك شيء تلان واي أو مراس ديك هكذا أتمنى شيء نهاتف لكن تدل بدن أصوبيان إن شاء الله أتمنى بيكون قادون ديك صوبيان أنتي لما سردون يبلغ قادن أتمنى شيء رفتك أنتي سلام بعد ديك بهني لما دع ديك بهني إن شاء الله تعالى تعشودون إذا كمان سنين ما مقصيان يندوين شرفت له. ururka Xawiye Community oo ay dhalinyarada Johannes abaabuleen iyo waliba uu kumid ah ururada samafal oo inta badan ku shaqeeyaan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waana marwal banteen intii aan dhaqan arrimo bini'aadanimada Axmed Ibrahim Buule KGS TV Baydhabo